ninkii islaantiisa markay suuqa isu soo raacaan ama iyada waxay dhahaysaa war iga horreeya dadku iyagu ka arkay hayla soconin ama isaga wuxuu dhahayaa na iga dambe anaa ka horreenayay dadku iyagu ka arkay ilaahuma carabahan tagti iyo meelahan saasi ugu dhigantay gacanta saas labadooda waxaad moodaa in gacantaba gacanta kale saa ugu hatta haday dawaafayaan hadii ay macaan ku ilaada ay macaan kar wada socdaan anagoo kacbada tawaafayna ba waxaan arkay qorraxduna waa kulushahay waa ilaa 12 duhurnimo xilli ku dhow kulul waa tawaafayna kacbada Soomaali badan oo tawaafka tagtay baan tawaafkan ku jirnaa nin baa nagula jira tawaafka caraba yara xooga hilboono xoog leh islaantiisii baa la socota marka tawaafkii baa lagu jiraa caagad biyo qabow bay gacanta ku haysaa marka dabeetana marka tawaafku dhiidayaayo dhiidka ka masaxaysaa biyahay siinaysaa oo u xidhaysaa dhabarka ka dhirbaaxaysaa barakallahu fiik yalla tawaaf waa dhamaanaya beel inawad ducaysanayaan dadkaaba uma jeedo muraadba kamale walaal ila socotay waxaan ku yiri bal barwaaqada meesha ka socota eega idinku iyo khayrkan meesha ka socota markaas ayaa waxaan anagu isma yeeli karno waa kaas siyeel ma aha waa diin dhaqan waxa ka qofta ninkeeda dhididka saa uga masaxaysa biyaha qabow siinayso mar madaxii biyaha qabow kaga shubaysaa maaragt waa ajiib moogta ma sahlan marka nabiga sallallahu alayhi wasallam qaabkaas uu sameeyay jiray marka la Aisha waxay leedahay rasuulku xadiidka Nasa'i Bukhari-na riwaayad kale ku yimaadayo Nasa'i-na riwaayad kale ku keenay marka waxa dhici karta in isla qisadii tahay in laba qisa tahayna waa dhici kartaa bay shuraaxdu yiraahdaan waxay tiri annagoo rasuulku nala joogo habeen aqalkayga goor galaba aqalka annagoo joogna fasamicna laqatan wa sawta sibyan buuq iyo caruur qayladoodii yabaqod baanu maqalay faqama rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku ilaahi wuu kacay mise gabar xabashiyad ah dadkii madmadoobay meesha deganaa ah oo caruusada la galbinayaayo caruurtii iyo wixii arooski galbiskii baa lagu jiraa rasuulku albaabku saa isu taagay salawaatu Allaahi wasalaamu alayhi faqala ya Aisha markuu way fadhidaa ma soo kicin rasuulku markuu albaabku taagan yahay intuu furay Aisha taali kaale soo kac kaale fanduri kaale daawo meesha waxa ka socda Aisha aroos baa la galbinayaa kaale فجئت واني ببيتي فوضعت لحيي على منكب رسول الله هلكا الله فقروتك ما رسولك قربكيس هلكا سا سو صار دبركيس انت كنت تاغنيه بيتي هلكاسي marka intay barxad yar oo guriga ka horeysay istaageen masaajidkana ku dhow ayay maaragtay ciyaarayaan oo arooski bay u ciyaarayaan falkaasan daawanaya marka faj'altu anzuru ilayha waxaan bilaabay inaan daawado marna garabkan baan gadhka saarayo ka eega marna xaggan garabka rasuulka ka saara oo ka daawada bay tir faqala li markaas abaad ku taagnaa diwaani weeyno marka kontonkii kor u dhaafay nabi sallallahu alayhi wasallam buu madaxa kula jira waana taagan yahay inta ama shabi'ti Aisha miyada wili ka dharginde soo bas maaha daawashadii maya bay tir maya kamaan dhargin waxay tiri waa ka dhargin laakiin waxaan rabaa inaan ogaado meesha aan ka joogo iyo jaceelka ii qabo لأنظر منزلتي عنده منزلة أن أكتس كتشوغا إن أغادا ربا ما كما درجين هيا هضب الضاوى النبي أنت كد ما يسنى سوى كوتا جنانا يا من حديث رواية سوى حكم إذا وحي تري ولقد رأيته يراوح بين قدميه ولا وحان أركي يسوى أنتو دالي مربى لوك اسكو تاغي يا بيتي النبي صلى الله عليه وسلم ومربى لوك كنا صنايا صلوات الله وسلام عليه عبار مكوتو عائشة هي ما دركت ما ولي كادي وعني أنا الله يهديك كم حد من الزاد دي خير أرسلني يوم عيد صوم مريض نايش إسلامه صو استاكت نقال لي لا سمعت وده ما قالها حد ما شكد داوري تبي بالورا لها عائشة ما كرسول صلى الله عليه وسلم سوق لدق متشري يجبروا بوس كي تشوف تيجي تنسى